wax badan waxa la yidhi jiray shaashiyada maanta waxa farxadii ah inaan nin habar gidiyo raax salaaman ahay inaan meesha ka soo muuqato farxadii wadamada cadaanka ama horumaray qofka markuu aabalaan dhasho waxa la qaado oo la isku murmo DNA la qaadaa si loo ogaado in qofka uu dhalay in kale maanta laakiin DNA-gayga waxa ay suldaanka iyo ugaaska oo cadeeyay inaan salaaman ahay ayaga laga rabaa inay cadeeyaan waxaan maanta aad ugu faraxsanahay waxa waaye waan maqnaay maalintii galmudug koobka qaaday meel Nairobi la dhahan jiray laakiin sariirteedan ku kor ooynayo waxa dhahay farxadaan oo kale lagama maqnaan karo inaan reerka dhex fadhisay ku qurux badneed waxaan aad ugu mahad celinayaa qof walba oo ka qayb qaatay barnaamijkii kacdoonkii lagu sameeyay deegaankii ay deganaayeen reerkeena hadalkan ma aqaan hadalku iga dhumay aadaan u dhididaa raali noqdaa marka waxaan aad ugu mahad celinayaa suldaankeena adeerkeena iyo wiilkeena aad u quruxda badan waxaan idinku mahad celinayaa hawsha aad qabateen insha Allah inta si in ka badanna waan rajeynayaa inaad ilaahay marka labaad waxaan rabaa horta caawa xafladda waxa loo dhigo waa nabadoon cali dadka badankood nabadoonku arinta dabdamiska ku xuseen nabadoonku horta wax badan uu qabtay sida guudna horta dhaqanka Soomaaliyeed dalku wuxuu ka soo ahay laf dhabar xilliyo adag uu soo badbaadiyay xilliyadaas oo ay garsoor fiican u dalku uu ka jiray ama wax garsoor la yiraahdo uu jirin dadku kala cadaalad qaadi jireen waqtiyaal kala duwan uu soo maray dhaqanku inkastoo waayihii dambe uu siyaasadda aad ugu milmay oo dhaqankii intiisi badneed la waayay nabadoon cali tabashooyin badan oo ama habar gidir ka dhex jiray ama habar gidir Soomaali ka dhex jiray ayuu ka shaqeeyay inta aan ka xasuusto inkastoo da'yarahay nabadoonka waxyaalaha aan xasuusto waxa kamid ah nabadoon cali maanta ay dhikaarkiisa hadii la raadiyo inta qof habar gidira oo damiin ka yahay ma la xisaabi karo 300 qofood oo u dambeeyay 300 qofood oo u dambeeyay oo hada ku biirtay hay'adana wasugida oo ciidamada qalabkiisa lagu biiriyay ay dhigiisa ka damiina oo habar gidira iyadoo xildhibaanada iyo dhaqanka qaar ay damiinada waayeen nabadoonka waxyaalaha aan ku xasuusto waxa kamid ah guriyo la haysto ama cid laga haysto ama iyagoo haystaanba inuu arrimahooda ka shaqeeyay nin dhalinyarada muddo badan ku dhex jiro uu ahay nabadoonku kolleytaba arinta dabdamiska asaga iyo suldaanka iyo laf dhabar uu ahaayeen nabadoon cali marka waa nin markasta dhalinyarada ku dhaxmilan nabadoonna ah dhalinyaradana ka tirsan nabadoon cali waxaan leenahay hawsha ay waday caawayeesa amaanta ku ekaan hadii la yiraahdo waxaan rabnaa inay hore u sii wado inuu dhalinyarada kamid ahaado waa rayda macna inay saaga darin rabnaa nabadoonka nabadoonada kale inkastoo maana daacna cali waa fiican hadaan nirmaan kuwa kala xun laakiin waxa waaye doorasho markay timaado waa lagu qasbay in qof la doorto marka nabadoonka dhalinyarada habar gidir u garatay caaw inuu yahay ninkii wax qabad ka fiicnaay waxaan leenahay nabadoon inaad sii laba jibaarto ayaan ku rajaynaynaa hadii la yiraahdo